dadka kuwa aan jamhuuriyadda nafsiga warhooy nafsideen been haw sheegina dadka in daawana been haw sheegina in ku xiran waxa la aan jamhuuriyadda nafsiga ma jirto koonkan ku noolnahay waa isku dul nool yahay qof ay ku nooshahay oo qof dheey yani waxa raba iska sameeyna ama waxa raba ay qabana ma jirto haddii shalay ka soo baxda meel kale imaatay asla kusto inta ayaa ku dhaanto ina banaanada liimatana jamhuuriyadda nafsiga dadkan ka waaso shay fiican ma waa laga fiican yahay dadkan shaqaalimada ka dhigay shay xun shaqaalimada ayaga taas soo mar dadkan ku jamhuuriyadda nafsiga ayaga shaqaale badankood soo hayba hadii shalay shaqaale ka soo baxay dadka shaqaalimada ku dhigay shay yani saad u xun waa shay laga fiican yahay shaqaalimadu ahaan ma xumo oo waa shay lagu tababarto haddii lacagta aan qaymid asiib maal ama asiib kambeyn laho kale waa shay ku wanaagsan in aad ku soo tababarata laakiin waxa dabaalnimo oo duqanimo in aslahan shiiso ama aska dhigto shay mid yani mees waxa kuman haddii oo ka baxana sidiisa qiiqil galeys ama weligiis oosan heer gaarin ama mees iska dhigto meel aadan ka bixi karin weliga ama ku xukumanta markaas ay u aamintaa waxay tahay duqanimo mahane in aad dhahdo ku meel gaara muxumo oo wanaagsan tahay dadkan ku dhahayna ayaga badankood shaqaale soo hayba marka haddii la kala imata ama soo jimi haddii aad ka shaqaysto kale ina banaan la sii sheegto in jamhuuriyadda nafsiga dadkan ka waaso waa kugu khalad maxaa yeelay meeshan ka shaqaysanaysid ay ahaamilidba oo social media tusaale YouTube ama Facebook ayaa ka shaqaystaa kale waxa ku mantahay shirkadaas waxa ku mantahay dadku daana sidoo kale waxa ku mantaa oo ma jirto yani shay aniga soo go ayaan sameynaa ma jirto kasto laga yaabo in sidii hore si keenas in soo gasho ama nolol ka wanaagsan laakiin mar kasto waxa la jamhuuriyadda nafsiga ma jirto dadkana been ha u sheegina allan ka baqa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.